Bismillah, assalaamu calaykum asxaabay kusoo dhawaada channelka Ustaad Gaafow. Waa mar kale sheekadii saxaraha marka ilaamay beliefka Toronto, qisadii dhabar adeegay ku dhacday Haaruun xilligii uu tahriibayay dhanka ilaa Canada. Haddaba waxay inoo joogtay qisada qaybteedii lixaad. Haaruun oo joogo ee soo gaaray waddanka Mareykanka, khaasatan gobolka Texas, asaga iyo asxaab kale isla socdeen. Markiiba waxaa lagu xiray xabsi ama detention center ku yaala hay-adda socdaalka ee leedahay oo ku yaalo magaalada Laredo ee gobolka Texas. Waxaan aad idinkaga raali gelinayaa maadaama aan ka maqnaa qadka muddo bil ah sababo jira aawadeed oo ii suurageli weysay inaan fiidiyowyada edit gareeyo. Marka waa idinka raali gareynayaa. Qaybtii toddobaadna waa tana. Ugu dambeyntii, Haaruun iyo asxaabtiisii markii ay soo gaareen hay-adda socdaalkana isku sheegeen inay yihiin dad Soomaali ah oo qaxooti dalbanaya. Isla markii waxaa lagu xareeyay qol ka duwan qolalka xafiisyada oo u qaabilsan dadka immigrant-iga isdhiibaya in lagu hayo halkaas. Muddo yar ay ku xirnaayeen qolkaasi ayaa mid mid loo soo saaray oo interview lala yeelanayay. Kolkii la soo gaaray Haaruun, waxaa la weydiiyey su'aalo ay ka mid yihiin magaciisa, halkuu ku dhashay, waddankuu kusoo barbaaray, intii waddan uu soo maray, inuu xaas leeyahay, inuu carruur leeyahay, maxaa ku qasbay inuu soo dhaafo waddamada oo qaxootiyaha bixiya ee isaga dhiibaya Mareykanka, iyo su'aalo badan. Markii uu su'aalihii dhammaaday, interviewgii u dhammaaday, ayaa waxaa lagu celiyey qolkiisii. Isaga iyo asxaabtiiba lasoo wada keenay. Habeenkii halkaa bay ku hoydeen. Subaxeedii dambe maray tahay barqadii ayaa laga kaxeeyey oo loo kaxeeyey xabsi weyn oo ku yaalo magaalada El Paso. Xabsigaasi waxaa ka buuxay Soomaali aad u fara badan oo gobollada waddanka dhan iskaga dhiiba, badanaa Texas iskaga dhiiba, halkaa lagu iskugu wada keenaa. Muddo bil ah ku dhowaad ama bil ku dhowaad ayuu ku jiray xabsigii El Paso oo waxba interview iyo waxba kale aanan loo qorsheynin, oo keliya ay ahaayeen in laga wareejiyo oo loo kala qaybiyo waddanka intiisa kale xabsiyada ku yaala ee lagu hayo dadka immigrant-iga is soo dhiiba. Markii ugu dambeysay, isaga iyo koox kale oo aad u badan oo gaaraya ilaa kontomeeyo ayaa waxaa loo wareejiyey xabsi ku yaala gobolka Louisiana, magaalo yar oo ku taalo la yiraahdo La Sala. Xabsiga magaciisa waxaa la yiraahdaa La Sala Detention Center. Waa xabsiga uu ku jiri doono Haaruun muddo 9 bilood ah, oo ku qaadan doono in sharciga loogu diido halkaas, laguna qorsheeyo in dalka laga saaro, balse nasiib wanaag aanan u suuragelin hay-adda socdaalka inay helaan waraaqado dib loogu celiyo Soomaaliya. Asaga iyo Soomaalidii kale intoodii badneed ay kula xirneyd xabsigaasi. Muddo yar markay ku xirnaayeen xabsigii Louisiana ku yaalay, ayaa Haaruun iyo inta badneed asxaabtii la socotay waxaa loogu wada yeeray in interview laga wada qaado, mid walbana lagu kala xaqiijiyo inuu yahay qof u qalma in qaxootiga la siiyo maadaama uu ka soo cararay dhibaato uu sheeganayo. Interviewgan waxaa lagu kala saarayaa inaad tahay qof u qalma iyo inaadan ahayn. Haddii lasoo caddeeyo inaad tahay qof u qalma, waxaa lagu gudbinayaa maxkamad oo kala saari doonta hadhow inaad u leedahay xaq in sharci lagu siiyo iyo in kale. Inta badan maxkamadaha Mareykanka ma siiyaan sharciyada dadka qaxootiyaasha, haba u badnaadaan dadka Soomaalida ah. Markiiba waa loo diidaa sharciga, oo haddii la doonana dib baa loo celiyaa. Muddo yar kadib, Haaruun waxaa loo ballamiyey haddana maxkamad, oo markii interviewgu ku baasay, adigu waxay qaadanaysay muddo ilaa 3 bilood ah, waxaana maxkamaddii ay u diiday sharcigii. Haddana mar labaad ayuu codsaday in appeal uu ka qaato, iyadana mar labaad ayay u diiday sharcigii. Markii ugu dambeysana waxaa lagu xukumay in waddanka laga saaro, sidoo kale Soomaalida kale intii meesha xabsiga ku xirneyd. Muddo markay ku xirnaayeen xabsiga oo ay 90 beri dhaafeen, muddo 3 biloodna ay dhaaftay, ayaa waxaa sharciyan waddanka Mareykanka u yaallaa qofka haddaanan lagu saarin 90 beri in la sii deynayo oo lagu sii deynayo damiin.
markiiba walaashii oo deganeed Maraykanka oo suuban ahayd ayaa damiinatay oona ka soo saartay xabsigii, wuxuuna kula noolaaday iyada magaalada Amarillo ee gobolka Texas ka tirsan. Muddo yar uu joogay oo sharciyo ku raadinayay, way u suuragali weysay, balse wuxuu helay sharci yar oo ku shaqaysan karo. 6 bilood markuu ka shaqaynayay kadibna wuxuu go'aansaday inuu isaga soo guuro waddanka Maraykanka uuna soo aado dalka Canada. Qorsheyn gaaban kadib, Harun wuxuu soo bilaabay safarkiisii ugu soo socdaalayay dhanka iyo Canada. Markiiba wuxuu soo aaday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, kadibna habeen markuu ku hoyday maalinkeedii xigtay wuxuu uga soo socdaalay dhanka iyo waddanka Canada. Kadibna wuxuu soo gaaray magaalada Emerson ee ka tirsan gobolka Winnipeg. Harun iyo koox yar oo ku helisa safarka markay soo gaareen magaalada Emerson ee ismaamulka Manitoba, waxaa ka hor yimid askar ka tirsan hay-adda socdaalka ee Canada, waxaana loo sheegay inay ku jiraan dhulkii Canada ayna isu dhiibaan askarta. Markiiba waxay isku dhiibeen ciidankii ka tirsanaa hay-adda socdaalka, waana la soo kaxeeyey. Waxaa la keenay xarunta hay-adda socdaalka ee ku leedahay magaalada Emerson, waana xilli qabow ahayd oo habeen cawaysimo ah, waxaana laga sii baxaya markaa winterkii. Bishu waxay ahayd March 15, 2017. Harun iyo dadkii la socday waxaa lagu yiri caawa halkan iska seexda, waaga markuu baryo ayaan iswareysanaynaa. Halkii bay habeenkii ku baryeen. Waagii markuu baryay ayaa quraac loo keenay, way quraacdeen. Kadibna waxaa loo bixinayay mid mid si loola yeesho interview. Harun markii la soo gaaray oo interviewga lala yeeshay, waxaa lala yeeshay interview la mid ah kii looga qaaday magaalada Laredo ee gobolka Texas ee waddanka Maraykanka. Markuu interviewgu dhammaaday, Harun waxaa loo sheegay inuu fasax yahay uuna iska bixi karo, hadduu doonana uu sugi karo ilaa galabkii. Waxaa jira gawaari imaada oo qaada dadka immigrationka una qaada magaalada Winnipeg, isla gobolkan ama isla maamulka Manitoba. Markiina wuxuu go'aansaday inuu sugo maadaama uusan dad ka aqoonin gobolkaas ama ismaamulkaas. Kadibna asaga iyo dadkii kaleba galabkii waxaa loo soo qaaday magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba ama ismaamulka Manitoba. Kadibna waxay lagu dejiyey shelter ama dhulka hay-adda socdaalka ee dadka ku dejiso, asaga iyo dadkii la socdaba. Muddo 7 uu joogay magaalada Winnipeg, Harun wuxuu ku mashquulsanaa samaysashada warqadda fayska loo yaqaano ee lagu xareeyo sharciyada kale ee loo baahan yahay waddankan Canada markaad timaadid, oo ugu horeyso sharciga shaqada iyo sharciga Social Insurance Numberka ama SIN numberka loo yaqaano, iyo sharciyada caafimaadka iyo wixii la mid ah. Sidoo kale, warqaddan waxay kuu saamaxaysaa maadaama aad tahay qof waddanka ku cusub, aanan haysan hoy iyo wuxuu nolosha ka bilaabo, waxyaabaha dadka lagu saacido sida ceertoo kale ayaa ku codsan kartaa warqaddan. Markiiba Harun markuu warqaddii helay, wuxuu asagoo markiisa hore qorshihiisa ahaa inuu u socdaalo magaalada Toronto, ayuu wuxuu kasoo tegay gobolkii Manitoba ama ismaamulka Manitoba oo usoo wareegay ismaamulka Ontario ee magaalada Toronto. Magaalada Toronto waxaa u degan dad ahalkiisa qaraabo ee dhow ay yihiin. Waa lagu soo dhaweeyay si sharaf leh. Magaaladii ayuu la qabsaday, sharciyadii u baahnaa dhammaan wuu xareystay. Markiiba wuxuu bilaabay Harun inuu ama shaqaysto gelinka kalena uu wax barto. Markii uu bilaabay waxbarashada dugsiga sare ayuu bilaabay, wuxuuna ka bilaabay iskuul lagu magacaabo Emery Adult Learning Center oo loogu talagalay dadka da'da ah ama ka weyn 18 sano. Lagu baro waxyaabaha sida dugsiga sare waxyaabaha looga barto. Waa aqoon lasoo koobay oon qofka lagu qasbaynin maadooyin aad u fara badan inuu waqti badan qaato. Marka muddo 2 sano ah ayuu iskuulka dhiganayay oo kusoo qalin jebiyey, kana soo qaatay shahaadada dugsiga sare, asaga oo gelina shaqaynaya gelina wax baranaya. Aad ayay u adkeyd maadaama saacadaha badan uu shaqaynayo iyo saacadaha waxbarashada aad u badan yihiin.
haddana meelaha ay ku kala yaalaan iskuulka iyo shaqada ay aad u kala fog yihiin. Wuxuu ahaa 2 sano ugu horreysay uu Canada joogay nin seexda maalin kasta 4 saac ama 5 saacadood maximum. Muddadii uu wax baranayay, wuxuu aad isugu taxallujiyey inuu dadkiisii wax taro, maadaama ay kasoo tegay dad aad u sabool ahaa oo ahalkiisii ahaa, hooyadii iyo aabihii ugu horreeyaan iyo walaalihiiba. Mid walba meeshiisa wax ku tarayay, waxna baranayay. Aad ayuu u dadaalay. Waxbarashadii dugsiga sare markuu ka qalin jabiyey, wuxuu isla markii isku diiwaangeliyey inuu barto heer jaamacadeed ama college. Wuxuuna isku diiwaangeliyey college-ka lagu magacaabo Seneca College, uuna rabay inuu ka barto IT-ga qaybta cyber security-ga. Harun muddadii uu isku diyaarinayay bilaabitaanka college-ka ayuu wuxuu go'aan ku gaaray inuu guursado gabadhii uu dooneed muddadii 12 sano ee uu safarka kusoo jiray ka hor doontay. Ayaa wuxuu go'aansaday inuu guurkeeda dhigto, maadaama hadda uu noqday nin degay Canada oonan safar dambe usii soconin. Marka wuxuu go'aansaday in gabadhaasi ay noqoto xaaskiisa ugu dambeyntii. Kadibna wuxuu bilaabay college-kiisii oo iska sii watay, halka iyadana dhinaca kale uu uga furay dacwad. Iyadoo dacwadiina ay furan tahay asagana college-kiisii wata, ayaa waxaa geeriyooday aabihii oo ku geeriyooday wadankii Soomaaliya. Harun markiiba waxaa la soo darastay xaalad aad u daran oo noqotay inuu dhaqaale ahaana reerkiisii kabo, zawjadiisiina kabo, ahalkiisii intiisa kalena kabo. Haddana waxbarashadii uu sii wada kari waayey maadaama ay taabatay geerida aabihii aad u xanuun badneyd. Muddo yar kadib geerida Aaba Gafle, Harun wuxuu go'aan ku gaaray inuu joojiyo waxbarashadii uuna u soo jeesto caawinta reerkiisa, maadaama uusan dhammaynin semesterkii koowaadna waxbarashada wax badanna uu waqti gelinin. Wuxuu yidhi dib ayaa u wada bilaaban doontaa mar qura. Marka wuu iska hakiyey, kadibna wuxuu u soo jeestay inuu reerkiisa u shaqeeyo uuna support gareeyo. Kadib waxaa loo keenay zawjadiisii. Muddo 13 sano kadib dib ay ugu midoobeen waddanka Canada. Hal sano kadib geeridii Aaba Gafle, waxaa lagu soo booday hooyo biyood oo muddo isbuuc ah xanuunsanaysay. Si lama filaan ah iyadana tii Rabbi u timaaday oo halkii ku geeriyootay. Harun markan wuxuu noqday dunida nin ku keliyoobay oo waalidiintiisii ay ka tageen, balse walaalihiis uu yahay ninka ugu weyn ee caawinaya. Markaana wuxuu dhabarka u xirtay inuu caawiyo walaalihii. Waqti yar aan saa u badnayn kadibna waxaa la keenay walaashiis Mandeq Canada iyadana timaaday. Hadda Harun Ilaahay wuxuu ku manaystay 2 owlaad ah oo wiilal ah oo u kala baxsaday Khadar iyo Khalid. Halkan ayaa ku joojinaynaa sheekada marka ilaa Maple Leaf-ka Toronto. Qisadii dhabar adeeg ee ku dhacday Harun. Sheekooyin badan oo aan ka tagnay ayaa jiro oo qisada ku dhex jiray, qaarkood ay xasaasi yihiin, qaarkoodna ay sheekada dheereynayaan. Marka waxaan go'aansanay inaan soo koobno. Aad baa uga xunnahay inaanan sii tataaban karin tafaasiil badanna qaarkood aan ka bixi karin, maadaama ay ku saabsan yihiin xaalado cakiran. Waan ka xunnahay, waan ka cudur daaraynaa. Fadlan haddaad ka heshay qisadan, suulka kor u taagan noo dhaaf. Haddaad hore noola socotayna waa ku mahadsan tahay. Haddaad nagu cusub tahayna fadlan subscribe dheh. Sheekooyin kaleto ayaanu soo wadnaa. Haddaad naga mid ahayd, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Asalaamu calaykum.